daawadayaal magaaladan aad aragtaan ee idin muuqata waa magaalo hal sana iyo 4 bilood jirta waa magaalada Mustaqiim ama mustaxiishii hore oo loo bedelay Mustaqiim magaaladan waa goobta lagu soo raray magaaladii hore ee Mustaxiil oo wabiga jiinkiisa ku tiilay kadib markuu saameyn ba'an ku yeeshay wabi Shabeelle oo fatahaada ku sameeyay waxa goobtan igula sugan gudoomiyaha degmada Mustaxiil mudane Saciid Ugaas Cali gudoomiye ku soo dhow bal sidee muddo hal sana iyo 4 bilood magaaladu soo ugu dhisantay iyadoo banaan ah oo aan ogeyn waqti iyo dadaal iyo maskax yaanu gelinay wax kale oo hadda maanta aan shacabkaas aan tarnay haba yaraatee ma jirto marka laga reebo waqtigii la soo rarayay ee fatahaadu jirtay xilli early warning xafiiska DRM-ka uu nasiyay yaanu dadka ku soo rarnay miisaaniyadan 2 milyan oo bir taasoo aan gaadiid ugu kareynay shacabkana aan ku soo rarnay banaankana aan ku keenay xaqiiqatan waxa jiray dadaal kale oo hore xafiiska DRM-ka uu sameeyay 900 oo qoys ayaa jirtay marka jeengada la siiyay balse aynan bilaabin master plan-ka xilliga la sameeyay xilli hore ayay ahayd qorshuhuna uu hirgeli waayay sabab jira xagga shacabka aragtidooda oo aad iyo aad maartay ay u diidanayeen meesha tan balse markii aan aniga la soo magacaabay oo muddo hadda laga joogo sanad iyo 7 bilood wacyi gelin ilaa muddo 3 bilood qaadatay ayaan aniga iyo cabinetkayga aan ku sameynay wacyi gelin kadib waxaan jibinay fikirkii ahaa inay halkan soo degaan ay diidanayeen waxaan ognahay in goobtan ayna wax xafiisyo cusub aan laga dhisin xafiisyadina ay xagga hore ku yeelan hadda maxaad ku shaqaysaa xaqiiqatan waxaan ku shaqaynaa labada bloggeed aragteen oo aan dhisnay intii isbedelkii kadib la dhisay ayaa markaa ayaan ku shaqaynaa halka xafiisyada qaarna ay kare ku jiraan oo magaalada hoose ay ku jiraan goobaha adeegyada aasaasiga sida caafimaadka waxbarashada xagee hooyo maxaa maadaama xaruntii caafimaad iyo goobaha aasaasiga xagga u dhameystirayeen imika meeshii laga soo wada guuray bal kuwa iyaga xageed ka dhigtay hadda xukuumadda dadaalada ay wado xisbiga iyo maaragtay xisbiga barwaaqi iyo xukuumaddeena deegaanka dadaalada ay wadaan hadda waxaa noo socda dhismo waxay noo socdaa maaragtay health center ayaa noo socda oo meel fiican maraya waxaan ku shaqaynaa 3 qol oo health post ah ayaan ku shaqaynaa oo xarunta caafimaadka ee laabtii xaggeeda laga soo qaado meesha aan keenay oo annaga degmo ahaan aan isku yabanay sidoo kale waxbarashadii waxaan dhisnay crash program ayaan ku dhisnay crash ahaan baan ku dhisnay si degdega dugsi hoose dhexe dugsiga sarana gelika dambe ayay ku dhex dhiganayeen meeshaas ayay ku dhex dhiganayeen iskuulkiisa sarana waa ka maanta xarigana looga jaray dadaal haddii la bilaabo oo dhabar adeegna loo yeesho natiijo walba waa la gaarayaa xaggi hoose ma dad baa ku haray mise waa laga soo wada guuray boqolkiiba boqol waa laga soo wada guuray mustaxiisha hoose wax ku haray haba yaraatee ma jirto bulshadiina waxa weeye baaqi xisbiga iyo kii xukuumadda way ajiibeen sanad ka hor ayay ahayd markii xukuumadda iyo madaxweynaha oo wada socday halkan baaq noogu sameeyeen baaqi ayayna qaateen sidaas ayna magaaladii ku hirgashay aad iyo aad baan shacabka ugu mahadcelinaynaa